ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وكتاب كيني تيسير الفرائض على طريقة سؤال وجواب. درسيني وقدم به إن شاء الله تعالى، وأنا درسي كوبي صدنات، وحين كبلابنا هلك أويري قسمة التركات. قسمة التركات تركاتك وحويان قيبين تيدي، والدرسي وقدم به وأنا دحلك مقصود كيسي دنتيسي هدف كي لها إن تركضه يوحن وميدكو كتغي لقيبيو وابو جيددي يولكي لو سocday weeyaan. نعم تاسا markaa kan laga hadlaya ما تعريف التركات لغة واصطلاحا. التركات تعريف كيد waa maxay xagga luqada xagga اصطلاحا. وما المراد بقسمة التركات؟ قسمة التركات المراد كيدنت laga leeyahay waa maxayna. التركات لغة جمع تركة وتركة ولا جمعية، وتطلق على الشيء المتروك وحي لغا تago ayaa markaa lagu idlaaqa tarika wixii laga tagay. وتركة الرجل ninka tarikadiisuna miiraathu waa dhaxalkiisa. تركة الرجل وميراث الرجل. واصطلاحا ما يخلفه الميت أو حميدك كتغو من أموال أو حوله أو حقوق أما حقوقه مال يحوله كتغي أما وحوسه حق الله أو كتغي أو حقوق محاوت صالة مالكي يا مواشي قرني حوليسي يلعقتيسي يقوارديسي يقريهيسي وحاصل من أموال ويان أو حقوق محاوت صالة كالشفعة والقصاص. سيدا الشفعة دي قصاصتي أو كله. الشفع والقصاص وحقوق ويان. حق الشفع وقف كان لها وحويان قف بي ميل وضل لهايين ميشاي وضل لهايين. حق الشفع كلها قف كي وذل ليهين وكاي وذل ليهين ميشا ما إيبين كرو عد كلك ما إيبين كرو كانوا أقلانين هدو عد كلك إيبينا وعدا كان ميشا اعتماده كان ميشا كو هراي وحو حق ليهي كان لغا سو إيبي إن وحي سو عليو اسنا ميشا ولا وريغو waa dadkii meel wada leh ka dhaxayso oo aan kala socnayn. نعم sida dad salahan guri wada leh, hal guri wada leh, hal qol wada leh, salahan hal bakhaar wada lahaa saas oo kale. wal qisaas iyo qisaastii iyo de xadul qisaas buu lahaa isaga lahaa markaasuu dhintay. markaa inuu qisaasta uu oofisto iyo inuu cafisto isaga u taalay uu dhintay waa xaq uu leeyahay. ciddii markaa isaga de uu ka tegay ayaa xaqaas waxa weeyaan yeelan doonto oo xaqaas u wareegaya iyagu godho ama wixii fushan doona ama cafin doona halkiisii galaya. shufacadana uu ka tegay ayaa waxa weeyaan yeelan doona oo shufacadii ku wareegaysa oo halkiisii iyo booskiisii galaya. shufacadii iyagaa ka dhaxlaya, qisaasta xaqeedina iyagaa ka dhaxlaya sida xoolaha kale uga dhaxlayaan. marka wuxuu meedku ka tago amwaal ah ama xuquuq ah aw ikhtisaasaatin ama wixii sida gaarkaa isagu dadka kale ugaga mudnaa. oo ikhtisaasaadka waxaa loo jeedaa maa yajuusu tamalukuhu walaa yajuusu baycuhu wixii in la mulkiyaa ay banaan tahay laakiin iibkiisu una banaanayn. sida tusaale ahaan ataxajur يعني إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار دولكي الأرض الموات أها أو عضله أي نجرين بنانك وحويان إسكا أها دنتي إنو قف وحويان والنورين يا وداهضو ديتو دقحان وكورنياشا كغسو دوريتشيو حدود دي ديناعي دي marka kacayn kaasiya intuuna إحياء ardi si fiican ula iman laakiin uu calaamado uu saa ugu samaysto isagaa ka mudan dadkii kale. waxaan leenahay adigu
ixyaa almuwaadkii la kaalay oo dhulkaan noole oo beer oo shaqo ka qabo sidaa ku yeelo goordhow. haddii kale booska banee markaa isagaa imika dadkii kale ka mudan. hadduu waxba ka qaban waayaa ayay ka wareegaysaa, laakiin isagaa dadkii kale hadda ka mudan. nacam, taasoo kalea markaa u tusaalaa. waxay u tusaaleeyaan aygii oo kale, oo ayga waxaa loo haystaa lisaydi walizarci walilxiraasa walilracyi, inuu xiraasadii ilaaladii uu ku ahaado, inuu kuu soo ugaadho, waxyaabahaasoo loo haystaa. nacam, marka ikhtisaasaadkuu ka mid yahay. wuxuu qofku soo iibsan karo loo ogolyahay iibkiisa maaha, laakiin in loo haysto loo taballugo wixii intifaaciisu uu banaan yahay sida kuwa aynu sheegnay waa ay banaan tahay. ikhtisaasaadka kuwaasaa markaa ka mid ah wixii qofku dadka kale uu ka xigay. marka wuxuu meydku ka tago oo amwaal ah oo xuquuq ah oo ikhtisaasaada ayaa laga dhaxlayaa. wuxuu qofkaasi isagu u lahaa xoolihiisii ama xuquuqdiisii ama wixii uu dadka kale ka mudnaa, marka uu dhinto waa laga dhaxlayaa. nacam, walmuraadu biqismati tarika, atarika qismadeeda waxaa loo jeedaa icطaau kuli waarithin, in waarith wal iyo dhaxlo walba la siiyo maa yastaxiquhu sharcan, sharci ahaan wuxuu u mutaysanayo min maali muwarithihi, muwarithkiisa iyo dhaxal siiyihiisii, waa kii uu dhaxalkiisa lahaa ee dhintee maalkiisa ka mid ah. wixii uu ka mutaystay muwarithkaa dhintay maalkiisii sharcan wuxuu ka mutaystay in la siiyo. maa mansilatu qismati tarika min cilmi faraa'id, qismatu tarika tarikadoo la qaybiyo mansilada ay cilmiga dhaxalka ku leedaha waa maxayna? qismatu tarika hiya thamaratu lmaqsuud min cilmi faraa'id, waaba thamaradii midhihii maqsuudka ahaa iyada loo socday cilmiga faraa'idka xaggiisa ka ahaatay. wamaa sabaqa min atasiil wa tasxiix, wixii inoo soo horomaray oo ta'siil in masaladii asal loo sameeyo iyo tasxiix haddii kasrigalo in la tasxiixiyo iyo wixii aan masaa'il soo aragnay, wasiilatun ilayha waa wadadiina gaarsiinaysayoo inaanu xoolaha si saxan oo fiican u qaybinno ayaabay waddo u ahayd. nacam, waliana algarada min cilmi lmawaariith, ujeedada cilmi lmawaarith laga leeyahay macrifatu maa yakhusu kula waarithin min atarika, waa in waxweeyaan la garto waxa khuseeyo si gaara khuseeyo qof kasta uu leeyahay waxa weeyaan tarikada uu ka leeyahay. wadalika laa yakuunu, arrinkaasina kuma soo xasilayo ma ahaanayo ila biqismati tarika, tarikada in la qaybiye mooyaane. marka qismatu tarika waa maqsuudkii cilmiga faraa'idka. ta'siilaadkii iyo tasxiixaadkan soo marnayna waa wadadii ina gaarhsiinaysa, oo haddaan ta'siilkii iyo tasxiixii waxaa aqoon aan loo yeelan, marar badan inuu qofku wixii si saxan u qaybiyo ayaa ka qaldamaysa. marka wadda u ahayd. udkur sheeg aqsaama tarika, udkur sheeg aqsaama tarika waxaan laga tegay qeybaheeda. tanqasimu tarikatu ilaa qismayn, laba qeybood ba loo qeybiyaa tarikadii. alqismu alawal maa yumkinu waxay suuragal tahay qismatuhu in lagu qaybiyo bilcaddi, tirin, aw ilkayli, miis, aw ilwasni, miisaan, aw ildarci, dhudhun in la dhudhumiyo, likownihi ahaanshaha uu yahay mustawiya ajzaa, ajzaadiisu miday siman tahay oo isku mid tahay, oo wixii ajzaadiisu ay siman yihiin. alqismu athaani maa laa yumkinu qismatuhu bilcaddi wanaxwi, waa waxayna suuragal ahayn in lagu qaybiyo tirinya wixii lamid ah kuwaa lasoo sheegay, likownihi gayr mustawiya ajzaa, ahaanshaha uu yahay ajzaadiisu midayna sinnayn. kadaaba waa sida daabadu qofku ka dhintay, walcaqaar waa sida booskii qofku uu ka dhintay, asagiiri ay yara, walcaqaari sagiir waa sida booskeeda qofku uu ka dhinto, wasayaara waa gaadhigii, idaa lam tatacadad waa haddayna tiroobin una dee wixii dhowr hayn, aw tacadadat ama tirowdoode waa dhowr tira ahaa waa tire, walam tatasaawi ma sinna. marka waa labadaa qaybood, wax in lagu qaybiyo tirin iyo mis iyo miisaan iyo dhudhun ay suuragal tahay iyo waxayna suuragal ahayn. udkur sheeg duruqa qismati tarika, tarikada qismadeeda iyo qaybinteeda wadooyinka loo marayo. liqismati tarikati ciddatu duruqin minha, tarikada qaybinteeda dhowr wado ayaa u sugnaaday, waxaa ka mid ah qaar ka mid a lainoo sheegayaa, laakiin intan lainoo sheegay way ka badan tahay. awalan duruqu qismati tarika, tarikada qaybinteeda duruqda ay leedahay idaa kaanat tanqasimu bilcad, tirin iyo wixii lamid ah hadday ku qaybsamayso. idaa kaanat itarikatu tanqasimu bilcaddi, hadday tahay tarikadu mid ku qaybsamaysa tirin
يوحي لمدا فلقسمتها قيبين تيدا درق بأسوق كثيرة بدن منها وحا كمدا. الطريقة الأولى طريقة كوبات كمدا طرق ذا لو قيبين أيو تركذا وحي ترين أقبليا وقسمة التركة وإننا نري والله بقيبات وح ترين أقبله إن لا تريو أما لا ميسو أما لا ميزامو أما دودون لغو تريو وحيابه أجزاديسا يقيبيس ويسنايين يوح انتا مدنا اينا سورة قلكو أهين مركا وحي أقبليا ترين لا تريو أما إن لا ميسو أما إن لا ميزامو أما إن لا دودوميو طريقة الله مريا يكوبات أن تنصب وإن لو نسبيو سهام كل وارث من المسألة وارث والبابا دحلك استابا سهامته ومسألة كل يعني إن لو نسبيو الله تيريو إلى المسألة مسألة إن لو تيريو ثم يعطى من التركة تركة كدب لغسيو مثل تلك النسبة نسبة وحلمدة نسبة وحلمدة تركة إن لغسيو ويسمى وحلو مقعاباتا طريقة النسبة طريقة النسبة يلو مقعابا وهي من أهم طرق القسمة ضوينك وحلو قيبيو تكو مهم سنبيتا كميته ومحيو مهم سناتي لكونها صالحة لقسمي التركة وحي أصوبانتهاي لبدا قيبوت التركة لكونها أهنشها أي تهي صالحة لقسمي التركة تركة لبدا إذا قيبوت مد أصوبانو وحويان كوهبون أو وحي ترين أقبليه يوحان أقبلين به طريقة النسبة لغو قيبين كراه بركوائن ليدا هذا مسألة نسبة أو كله هاي وارث كوا إمسا نسبة أو كله لغسيو وسهامتي سي وارثك مسألة أو كلها مسألة دي الله تيرنيا كدب تركة دي وحا لغسينيا نسبة دي ومسألة كلها وحلمي داوا لغسينيا تصالحين أذقوا فهمنا المثال هالكة عن زوج وأم وأخ لأم علما بأن التركة $3000 قبل بقى وحي كلمة زوج أخ لأم أي كلمتي إنه وحي أي كلمة إنوها $1,000 أيها تصالحها ساينو سocon doona إن شاء الله تعالى oo dhammaan duruqda aynu ku wadi doonaa badankooda qaybta labaad mooyaane zawj akh li marka tusaalaha markaan ku wada fahanno wixii kale ee masaa'il kala sida tusaalaha aynu duruqdooda ugu wadnay unba loogu wadi doonaa insha Allah taala gabadh baa ka dhimatay zawj akh li zawj waxaan siin masalada intaan dhisno ugu horeyn nisfi umna thuluth akh li waxaan siinanaa sudus masalada asalkeedu wuxuu noqonayaa 6 zawjku wuxuu qaadanayaa nisfi oo 3 umna waxay leedahay thuluth oo 2 akh li wuxuu qaadanayaa sudus oo xabada marka 6 ku dhisnay zawjkii 3 sahmi buu helay umna 2 sahmi akh li 1 sahmi marka maxaan leenahay zawjku nasiibka uu ku leeyahay tarikada iyo xoolaha laga tagay nasiibka uu ku leeyahay waa marka 6 meelood loo qaybiyo 3 kamid sihaamtii uu zawjku ku lahaa mas'alada waxaad u nisbaysaa mas'aladii waxaad tiraahdaa 6 markii waxaan loo qaybiyo ayuu 3 helayaa 3 buu helayaa markii 6 loo qaybiyay imsuu yeeshay 3 baa laga siinayaa 6 meelood baa loo qaybinayaa 3 meelood buu qaadanayaa marka tarikadiina nisbadaas oo kale laga siinayaa oo tarikadii ayaynu 6 meelood u qaybinaynaa 6 meelood tarikadii markii loo qaybiyo 3 buu markaa helayaa mas'aladii waxaanu u qaybinay soo 6 ma ahayn 6dii loo qaybiyay imsa sahmi buu ku lahaa zawjku 3 buu ku lahaa idan 3dii kun ee dollar waxaad u qaybisaa 6 meelood waa 500 iyo 500 iyo 500
iyo 500 iyo 500 iyo 500 waa 6 meelood oo min 500 ah. zawjku wuxuu yeelanayay markaa 3 meelood ayuu yeelanayay. markaa 3 500 isku dar 500 iyo 500 iyo 500 oo kale 500. hooyada nasiibkeedu waa tarikada thuluthkeed. tarikadii marka loo qaybiyo 3 meelood oo meel waa nasiibkii hooyada. soo asalka 6 muu hayn 6daa oo asal mas'alihiya imsa sahmi way ku lahayd 2 sahmi. idan 3 kun 6 meelood markaan u qaybino waa 6 meelood oo min 500 ah. 2 isku dar leen sahmigeedu 2 haay 2 500 waa 1000. al-akh min al-um nasiibku tarikada ku leeyahay nasiibka uu leeyahay waa tarikada 6 meelood oo meesheed sudustu tariku leeyahay. tarikadii markii 6 loo qaybiyo meel buu yeelanayaa. وهو $500 waa $500. waxaad leedahay 3,000 oo dollar markii 6 loo qaybiyo maxay noqonaysaa 6 meelood markii loo qaybiyo waa $500. shantaas uu qaadanaya. aslu masaluhu muxuu ahaa 6 6daa muxuu ku lahaa xabad. idan tarikadina 6 meelood u kala jabi waa 6 meelood min 500 hal buu leeyahay hal meel oo 500 500 buu qaadanaya. marka saasaan ku wadana. dariiqada koobaad waa in sihaamta waaridku mas'alada uu ku leeyahay mas'alada loo nisbeeyo oo la yidhaahdo mas'aladan imsa sahmi buu ku lahaa. mas'alada maxaan u qaybinay 6 maxaa loo qaybiyey 8 maxaa loo qaybiyey 12 maxaa loo qaybiyey 4 maxaa loo qaybiyey 3. mas'alada intii loo qaybiyey asalka laga dhigay ayaan eeganaa inta sahmiye uu ku leeyahay. kadib intaa in leeg ayaa uu tarikadiina ka helaya. oo tarikada meesha taala waxaad u qaybisaa intii masalada loo qaybiyey waxaanad ka siisaa sahmigii uu ka lahaa oo kale ka sii. fa idaa nasabta markaad u nisbayso nasiiba zawji zawjka nasiibkiisii 3 oo 3 ah ila almas'alati mas'aladii 6 oo 6 ah wajadtahu waxaad heli nisfaha inay tahay mas'alada nisfigeed falahu min atarikati nisfuha. markaa zawjkii tarikadii wuxuu ku yeelanayaa niskeed nisfiguu ku yeelano wahuwa $1,500 waa $1,500. waidaa nasabta nasiiba alummi markaad hooyada nasiibkeeda u nisbayso 2 oo 2 ah ila almas'ala masalada asalkeedii 6 oo 6 wajadtahu thuluthaha waxaad helaysaa inay hooyadii thuluthkii tarikada ama masalada thuluthkeeda ay qaadatay. falahaa min atarikati thuluthuha tarikadii waxay ka helaysaa thuluthkeed wahuwa $1,000 $1,000 ayaa markaa u noqonaya. waidaa nasabta nasiiba alakhi min alum markaad u nisbayso alakh min alum nasiibkiisa oo waaxidun hal ah yani hal sahmi ah ila almas'alati 6 oo masalada asalkeedu 6 ah aad u nisbayso wajadtahu sudsaha waxaad heli inay tahay suduskeedii oo sudus uu ku yeeshay masaladii. falahu min atarikati sudsuha tarikadii wuxuu ku yeelanayaa suduskeed wahuwa $1,000 $1,000 ayaa markaa u yeelanaya. marka waxaad u nisbeen waxaa laga wadaa inaad tidhaahdo zawjka nasiibkiisu 3 buu ahaa yani oo aslu mas'alihii 6 ahaa buu 3 ku leeyahay 3 buu ku leeyahay sahmi. markaa wuxuu noqonayaa 3dan asalka 6 ah wuxuu ka yahay nisfi. idan zawjkii nisfi ayuu qaadanaya. hooyadiina 2 sahmi bay lahayd ilayne asalkii 6 ahaa 2 ku leedahay idan waa thuluthkeed. markaa tarikada thuluthkeed bay qaadan. akhli umkiina masaladii hal sahmi buu ku lahaa markaa halkaas sahmi asalkii 6 ahaa dee sudus buu ka yahay idan tarikadii sudus ayuu markaa ka yeelanaya oo saasaa markaa loogu nisbeynaya. qaabka caynkaas sida ayaa loogu nisbeynaya. markaa qofku goor wuxuu qaadanayay baa kuu soo baxayo waynaga qof walba soo saarnay wuxuu qaadanayay zawjkii $1,500 qaatay oo qaadatay $1,000 akh min al oo qaatay $500. haddaad tiraahdo markaa masalada asalkeedii soo zawjku nisfi muu lahayn nisfigaan calaa dul u siiyo xaggaa nisfigaas inaad ka qaybiso dee mararka qaarkeed ka qaldamaysaa oo mas'alo cawlantay haddaad tiraahdo toosuun
fardiga intuu qof walba lahaa uun tarikadana kasoo sii waxba kaa qaldamaya. marka lama odhanayo tarikada niskeed zawjka sii, umna thuluthka sii, akhli umna suduska sii, toos sa odhan maysid. marar badan way kuu saxmi kartaa, laakiin marka cawl meesha uu yaalo ama rad yaalayna kuu saxmayn way kaa qaldamaysaa. idan waa inaad tiraahdaa sahmigan uu qaatay, qofkan sahmigan uu qaatay asalkii muxuu ka yahay. marka taasi waa tanbiih in waxa weeyaan haddaad toosun uga siiso qof walba fardigiisa tarikadii inay dhici karto inay wax kaa qaldamaan, gaar ahaan masalo hadday caailo tahay ama rad ku jiro xilligii ay caailo ahaydna waxa weeyaan xooluhu dadkii u qeybsami waayaan, ileen cawlkii waa adigan garab maray qaabkaad u qeybin lahayde, ama xilliguu rad jiro inay xoola baaqi kugu noqdaan, waxa weeyaan wixii ay dadkii wixii loo celinay aada u celin weydaa dhici karta. marka halkaas sasa lagu baraarugayaayo mar walba waxaad sameynaysaa waxa weeyaan sahmiga uu qaatay intuu asalka uu ka joogo ayaa markaa laga siinaya. nacam. الطريقة الثانية أن تقسم السهام على المسألة وإن سهامتي مسألة لو قيبيه. والطريقة لبعض سهامت مسألة لو قيبي وما حصل وحي صابحة يضرب به التركة، تركة ذا لقلو فنيا. والطريقة لبعض سهامت أقيبي مسألة ذا لتوحي صابحة تركة ذا كله، وتحسب بالقاعدة الآتية، قاعدة صوصعته أيام ركال لقو حسابينيها. ومحل هذا هاي السهام واللو قيبي المسألة واللو قلوفتي التركة يساوي نصيب الوارث. سهامتي واللو قيبي مسألة دي واللو قلوفتي تركة دي وحي لمتهي وارث كنصيب كيسي. صاصا مرسى مركا. والطريقة لبعض فيكون نصيب الزوج من المسألة السابقة. فكان مسألة دي هرأي صوت زوج كنصيب كيس وحو نقليها مسألة دي هرأو كلها على هذه الطريقة. لكن طريقة لبعض كسو عنه وحو نقليها كالآتي سنة صوصعودة. ومحال هذا هاي صدح ayaa waxa loo qaybinayaa 6 waxa lagu dhufanayaa 3,000 waxa u dhigantaa $1,500. hada fiiri 3 ayaa waxa loo qaybinayaa 6. 3 waa maxay markaa? 3 waa sihaamtii, waa zawjka sihaamtiisi waa 3 oo loo qaybiyay 6. 6daasna waa maxay? waa masaladii aslu masalihi weeyaan oo lagu dhuftay 3,000. 3,000 waa maxay? waa tarikadii. idan 3 oo sihaamtii zawjka oo loo qaybiyay 6 oo asalkiya oo lagu dhuftay 3,000 waxa u dhigantaa $1,500. ونصيب الأم من المسألة السابقة على هذه الطريقة. نصيب كيدو مسألة هراء كل هايد ما كان طريقة كسو عنه كالآتي ويان وسيدي تناخلون مكا سيدي زوج كنوت واللبا لبا أو سهام تيدية وقيب الليح وأصل كيا ويحي صوبها كله فا 3,000 وتركة ديا $1,000 بصوبحية. ونصيب الأخ من الأم من المسألة السابقة على هذه الطريقة. أخ من الأم نصيبك وكوي يراني مسألة دي هوري مكان طريقة كسو عنه كالآتي ويان هل ولو قيبي لح هل وسهم جيسي ولو قيبي لح وأصل مسألة ولو قروفتي 3,000 وتركة ديا وحصوب حياة $500. تعصينا وطريقه. الطريقة الثالثة أن تقسم التركة وأن تركة الله قيبيه على المسألة مسألة وما حصل وحي صوبها يضرب به وحلو قلوفني سهام كل وارث نحلو البسهام تيس. وتحسب بالقاعدة الآتية قاعدة صوصعتك حسابي ومحيده التركة والله قيبي تركة دي ما أنت صدح كل مسألة دي هراء هيد أيها واحد الله قيبنا يا مسألة أسر كيدي وما أنت اللي حينه أهيد كله فو سهامتي وارثك وقادني يساوي يحاول لك أنت نصيب الوارث وارثك نصيب كيسي فيكون نصيب الزوج من المسألة السابقة وحو نقول يا زوج كنصيب كيسو مسألة هراء كلها على هذه الطريقة. طريقة هذا صدحان مخي كسو عنه كالآتي وصدا أو محيا 3,000 وتركدي والله قيبي لح وأصل مسألة هي والله قلوفتي 3 أو سهامتي وحويان زوجك يساوي $1,500. ونصيب الأم من المسألة السابقة على هذه الطريقة كالآتي. نصيب كيد وحوي مسألة دي هوريها كلها هيد طريقة هذا مكان كسو عنه سيدنا صوصعتها 3,000 والله قيبي لح 3,000 وتركدي والله قيبي لح أسركي والله قلوفتي 2
labaduna waa sihaamtii hooyada, waxay u dhigantaa $1000 $1000. ونصيب الأخ لأم أخ لأم نصيبكيس من المسألة السابقة مسألة هراء كلها على هذه الطريقة طريقة منك كسر عنه كالآتي وسنة صوصعت وما حين وصدح كن $1 والله قيبيي له أصلا مسأله والله قلوا فتي هل سهامتيسي وحاول أنت $500. هل كانت صالين وصدح ذات طريقة أنه كشقينه نعم صالين لك أنا وكشقي سنكرتها halkaa tusaale 3 daqiiqo markaan marnay isku waxba inoo soo baxay marka dariiqada doonta adigu mar tusaale kalena adigu keenso. ثانيا طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد. أرنك لما waxa weeye tarikada qismadeedii qaybinteeda duruqda loo marayo markay tahay mid tirin aan ku qaybsameynin oo tirin la tiriyo iyo miis la miisa iyo miisaan la miisaama iyo dhudhumin la dhudhumiyo iyo waxa kuma qaybsamaso marka maxaa la sameeynaya min turuqi qismati tarika idha kanat la tanqasimu bil addi tarikada qaybinteeda duruqda loo marayo waxa kamid ah tirin markayna ku qaybsamayn iyo wixii lamid ah oo shay siman ayna ahayn طريقة النسبة المتقدمة طريقة النسبة المتقدمة طريقة دي نسبة دي نصو هرمرتي أي مركا لغو وضيا وهي وحوي أن ينصب نصيب كل وارث والبنصيب كيسة إن لا نسبة من المسألة كلها إليها مسألة دي لا نسبة ثم يعطى من التركة دي لغسيو مثل تلك النسبة نسبة دا وحلا مدى وتصالحان قري نصو قابو قري تقري واحد ترين يو كو قيب سمية ماه waa guri meydkii ka dhintay marka maxaan leenahay waxaan leenahay gurigaas waxa dadkii loogu qaybin karaa duruq kala duwan baa la maraaye waxa kamid ah dariiqada nisbada dariiqatu nisba ayaa markaa kamid ah dariiqatu nisba ayaa markaa kamid ah oo maxaan leenahay tusaale ahaan haddaynu kaba soo qaadno hadda tusaalihii inoo soo horamaray in gabadhii dhimatay zawj iyo iyo akhli ka dhimatay abad guriga ay uga dhimatay maxaan leenahay gurigii marka 6 meelood loo qaybiyo 3 meelood zawjka la siinaya 2 meelna waxa la siinaya hal meelna waxa la siinaya akhli ba la siinaya akhli ayaa marka la siinaya marka gurigii 6 meelood baan u qaybinana 3 meelood oo nisfiga zawjku ka qaato 2 meelood oo thuluthkiyaana ha qaadato hal meelood sudusaana akhli ba qaadanaya oo dariiqadii maxay وطريقة نسبة مركن كوضنو تصالحا كلي نوقرا زوجة بنت أب أيوم مدكي كتغي زوجة واحد سيني ثمن بنت واحد سيني نصفي السدس أبن السدس يعصبه بس الذي واحد يقول اسنا أفر لاتن واحد أثمنا صدح واحد نصفي على بيتوبن واحد أسدس أفر واحد أسدس أفر xabada soo hadhin aabaha ugu dar waa 5 taas oo aabihi qaadanaya wuxuu ka tagayna waa gaari buu ka tagay marka maxaan leenahay dariiqatu nisba hadaynu ku wadno gaariga marka 24 meelood loo qaybiyo 3 meelood zawjada leh 12 meelood oo nisfiyaana binta leh 4 meelood oo sudusaana baa leh 5 meelood oo soo hadhay waxa yeelanaya afarna waa suduskiisi xabadna waa baaqi waa gaarigiisa sabaka loo kala qaybay marka dabcan waxay noqonaysaa in gaarigaas oo kale la iibiyo leen gaarigi la jarjari maaye saas u kala yeelan laakiin in la iibiyo go'dhow qiimihii marka loo qaybiyo ayaa marka ay noqonaysaa qoyba waxa leena tarikada sayaara haday tahay nasiibu zawjada nasiibkeedu muxuu noqonayaa zawjada nasiibkeedu wuxuu noqonayaa qiimaha gaariga la siiyo marka 24 meelood loo qaybiyo 3 meelood oo kamid ah bintana qiimaha gaariga la siiyo marka 24 meelood loo qaybiyo 12 meelood oo kamid ah gaariga marka 24 meelood loo qaybiyo 4 meelood oo kamid ah aabihiina 5 meelood oo kamid ah ayaa uu qaadan doona oo qiimihii ayaa markaas loo qaybinaya qiimihii baa la qaybin oo zawjadu waxay qaadan 24 qiimaha gaariga la siiyo 24 marka loo qaybiyo
saddex ka mid ay qaadan, bintadii 12 ka mid ah, umna 4 ka mid ah, abkuna 5 ka mid ah qiimaha. 5 meelood ka marka 4 loo qaybiyo 5 meelood ka mid u qaadanaya. nacam haddaad doonto waxaad tiraahdaa saddex oo sihaamta zawjada ah waxaad u qaybisaa 24. 24 u qaybi waa sihaamtii oo loo qaybinayo mas'aladii. marka saddex u qaybi 24 kadib qiimihii ku dhufo, gaariga qiimihiisii ayaad ku dhufan, wixii soo baxa waxaa qaadanaysa zawjada. bintadiina maxaad leedahay 12 oo sihaamteedii u qaybi mas'aladii oo 24 ah, wixii soo baxa qiimaha gaariga ku dhufo, dad wixii soo baxay qaadanaysa. umna maxaad leedahay 4 oo wax weeyaan sahmigeedii u qaybi mas'aladii oo 24 ku dhufo qiimihii gaariga, wixii soo baxa markaa ha qaadato. abna waxaad leedahay 5 oo sihaamtiisii u qaybi 24 oo mas'alada asalkeedii ku dhufo qiimihii gaariga, wixii soo baxa markaa ha la siiyo. saana waa loo xisaabinayaa. marka halkaas waxaa inoogu dhan labadii qaybood ee qaybinta tarikada. tan dambe oo wixii aan bilcaddi aan ku qaybsamayn waddo kaloo la maro ayaabay leedahay oo dariiqatul qiiraad wax loo yaqaano ayaa markaa lagu xisaabiyaa, laakiin anaga halkan inooguma taalo. kutubaha kale insha allahu tacaala ayaa lagu arki doonaa dariiqatu alqiiraad oo waxaa lasoo saaraa wax la yaqaano qiiraadu lmas'ala iyo makhraju lqiiraad. marka qaab bee leedahay looga shaqeeyo oo loogu talagalo waxyaabahaan qaybsamayn in markaa lagu qaybiyo. laakiin tan waxa weeyaan dariiqatu nisba ayaa markaa hadda inagaga filan oo lagu wadi doonaa insha allahu tacaala. mar dambena waxaa la arki doonaa dariiqatu alqiiraad ayaa mar dambe kutubaha kale lagu arki doonaa biidn illahi subxaanahu watacaala. wabihada tama maa aradtu jamcahu. waxaa halkaa inoogu dhamaaday wixii aan doonay uruurintiisa wataysirahu iyo fudeydintiisa fi hada kitaab, kitaabkan dhexdiisa. as'al allaha an yanfaca bihi jaamicahu wa qaari'ah. ilahay waxaan weydiisanayaa inuu ku anfaco kii soo uruuriyey iyo kii aqriya, ardayga dhegeysanaya intaba. waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin. kitaabkeeni taysiiru lfaraa'id calaa dariiqati su-aalin wa jawaab halkaasuu inoogu dhan yahay. maanta oo waxa weeyaan jumco ah, taariikhduna ay tahay bishii muxaram 5teedii 1443 sanadkii cusbaaya, kuna beegan 2021 bishii 8aad 13keedii. ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu anfaco waxaynu gafnay oo aynu qaladnayna rabbi subxaana wa tacaala ha inaga dhaafo. ardayduna gadaal ha ka muraajaceeyaan, hal aqriyo, ha lagu celceliyo. intan markaynu fahno insha allah taala qofku uu fahmo waxaa kan ku qoran iyo kutubada lamid ee kooban waxa ku qoran ay u gudbayaan masaa'isha waaweyn oo imika intan khulaasay hayd iyo fudaydinay meel walba tafaasiil dambe ayaa la arki doonaa hadduu qofku sii dhex galo kutubul faraa'id insha allahu tacaala. marka halkaas kitaabkii noogu dhamaaday. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam. billahi towfiiq.